sagaashan iyo sideedii ayaa la aasaasay waana garanaysaayo dadka dhulkan ku bahoobay Puntland ee walaalaha ah xadkooda meeshuu yahay waa la yaqaanaa marka hadduu isagu leeyahay waxaan soo xirayaa xadkii awowgii Ingiriiska uga dhintay anana waxaan leenahay waxa weeye Puntland meel joogtaba dhulkeedii iyo deegaankeeda xaq u lahayd ayay tagi doontaa insha Allah. waa garta madaxweyne sidoo kale waxaa madaxweynaha Somaliland uu dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku eedeeyay dagaalkan iyadoo inay horeynayso ciidada la socoto dowladda federaalka miyaa jirta waa huuhaa iyo been waxa uu sheegayahay soo waxay tiraahdaa baa la yiri naag dhalweeda ala ku waalatay inuu yiraahdo Puntland Soomaaliya nagu soo duushay waxa weeye cadfad uu rabo iyo aw rukacsi uu rabo dadka reer Somaliland inuu been ugu sheego in Soomaaliya ku soo duushay isaga duulaan ah Soomaaliyana meesha ma joogto waxa ku soo duulay dhulkii Puntland weeye waxa dalkooda difaacanaya Puntland waxada ay wax faragelin ah oo inaba la ekaatay dowladda federaalka ay ku leedahay arrintan ma ay jirto waa gardarro iyo aan loogu sugamo wax uu sameeyay meelaha hadda aad muddo joogeen Somaliland 10 sano ugu dambeysay hadda gobolada Puntland ay sheegato waa joogeen maxaa ku soo cusboonaaday hadda aad ku raqliyan aad ka hadashaan waa dabcan maalma meel bay joogtay laakiin waxa weeye hadda waxaan diyaar u nahay dalkii uu maalba taakada ay soo qabsanayeen nimankan goonigoosodka ahi in laga xoreeyo tukara kaliya maahan dhulka taaka dhul oo Puntland ay leedahay oo ogolaanayno dagaal hadduu dhaco walaal khasaaro waa dhacaya dad waa dhimanayaan dad waa dhaawacmayaan meesha banaanka lagu ma ciyaaraynin waxa weeye dagaal ba ka dhacay